doonaa insha Allah waxaan ka bilaabi doonaa hordhac ku saabsan Soomaalida magaca Soomaaliya halkee ayuu ka yimid iyo waliba percentage-ka ama dadka qaybaha ay u qaybsanaan dadka Soomaaliya ku nool iyo waliba xeebaha iyo inta bedku leeyahay iyo tirada dadka iyo waliba magaalada madaxda iyo waliba diinta iyo waliba soo qaad doonaa Soomaaliya 5 ayaa loo qaybiyay goormee loo qaybiyay halkee loo qaybiyay waddanka ayuu ka dhacay shirki loo qaybiyay Soomaaliya 5 qaybood iyo waliba 5 loo qaybiyay iyo gumaysiyaashii loo kala dhibay aan ku hormarinaa magaca ereyga Soomaal magaca Soomaali sida aan taariikhdaba ku arkay runta anigu mihi goob jooge ama mihi 9 jir ama mihi qof jira 70 iyo waliba xilligaas waxaan taariikhdan ka akhriyay Google-ka iyo buugaag fara badan ayaana isku mid si u qoraya haddii wax qalad ay jiraan waad soo qori kartaa as a comment ana u soo qori kartaa anigu mihi xilligaas qof taariikhda marka dhacisay qof goob joog u ahay mihi laakiin waxaan ahay qof soo akhriyay doonayana inuu uga faa'iideeyo ummadda kale ee aan waxba ka fahansaneyn dalkeena ama waxba ka aqooninba gobollada u qaybsamo inta kiiloomitir isku jiraan caasimadda labaad caasimadda saddexaad iyo waliba beeraha sidoo kale magaalooyinka dadka qaabka dhaqamaan ayaan rabaa inaan uga faa'iideeyo marka ereyga Soomaali waxay dhaheen cilmi baarayaal ayaa waxay yimaadeen la yiri badda Soomaaliya xeebta waliba waxay ugu yimaadeen marka dad reer miyi ah oo xoolo dhaqato ah oo ku haya Soomaal halka ay waxay ka qorteen ereyga Soomaal markay qorteen oo noodgarayeen oo kadib bulshada fiiriyeen waxay isticmaalayaan ama ereyada ay isticmaalayaan markay laabteen oo ay tageen waddankoodii ay waxay sameeyeen waxaan soo arnay dad ku hadlaya ama dhahaya Soomaal waxaa laqata ah dad reer miyi iska ah oo jooga xeeb ku nool marka waxay dhahaan waxaan u bixinaynaa waddankaas Soomaaliya soo marka halkaas ayuu ka askumay ama ka soo ifbaxay magaca Soomaali ama waddanka Soomaali waa jiraan buugaag fara badan oo qoraysa qaab kale u qeexaysa waa jiraan laakiin hadda markaan aan fiirshay Google-ka iyo waliba buugaag fara badan oo aan akhriyay waxay sheegayaan ama ay qorayaan waa magaca inuu ka imaaday Soomaal halkaas oo ka imaaday waxaan kala fiiri doonaa dalka Soomaaliya dunida markii hore maxay u aqoon jireen sida uu saan ognahay magacyo fara badan ayay u aqoon jireen laakiin 3 magac oo ugu muhiimsan ayaan ka soo qaadan doonaa waxay u aqoon jireen dhulkii udgoonay maxaa yeelay wuxuu leeyahay xeeb ayuu leeyahay kheyraad fara badan waddan runtii ay ku nool yihiin waddan muslimiin fara badan kheyraad badda uu leeyahay kheyraad bariga uu leeyahay hawadiisu waa dhexdhexaad kuleel maahan qabow maahan waa runtii waddan isku dheelitiran marka waxay u baxsheen dhulkii udgoonay waxay kala baxsheen dhulkii aabe waayo waxa ku nool muslimiin dadka ku nool 100% markaas ay soo booqanayeen oo ay magaca Soomaal keenayeen dadka ku nool waxaan 100% muslimiin laakiin hadda waxa laga yaabaa inay joogaan dad muslimiin ay ku nool yihiin oo ajnabi ah marka waa hadda 100% dadka Soomaaliya ku nool oo hadda jooga ajnabi iyo waliba dalka u dhashay isugu jireen maaha 100% because ajnabiga ayaa badanba Soomaaliya sababtiin wadamo badan ay jooga soo markaan 100% dadka Soomaaliya ku nool ama Soomaali ha ahaadaan ama is ahaanin loo dhigi karo soo markaan waxay kala u yaqaaneen geeska Afrika runtii wadamo badan ayaa geeska Afrika ku yaala 5 waddan ilaa waddan laakiin geeska Afrika oo waddanka kaliya ee geeska Afrika baxshan ana waddanka waxa loo fiirinayaa kheyraadkiisa wax soo saarkiisa qaabka dadka soo dhaqmaan markaan waddan runtii qayb libaax la qaatay inay Afrika inay qaaradda Afrika xornimo qaadato oo waddanka Soomaaliya wuxuu ka qaatay qayb muhiim ah ku qaatay okay marka waxay u qaybiyaan dhulkii udgoonay dhulkii aabe iyo geeska Afrika waxaan fiiri doonaa dadka Soomaaliyeed meeqa qaybood ay kala yihiin markii la fiiriyo dadka Soomaaliyeed kala yihiin marka koowaad xilligan la qoray ama dokumentiga la diyaariyay ama Google loo diyaariyay ma dhaweyn xilli fog 2006 ama 2005 waadiga meelaas okay marka percentage-ka waxa ku qoran 60% inay yihiin dad reer miyi
laakiin hadda waqtigan la joogo 2017 reer miyi dadka Soomaaliya boqolkiiba 60 ma ahan boqolkiiba 60 waa reer magaal boqolkiiba 15 waa beeraley oo dad beeraley ah boqolkiiba 20 waa dad reer miyi ah boqolkiiba 5 waa dad kalluumaysato ah oo badda ay ka raadsada nolol maalmeedkooda markaan fiirno xeebta Soomaaliya ama waxaa information guud ama warbixin guud ee Soomaaliya badkeedu waxaa la yiri xilligan wuxuu ahaay 635.541 kilometer square 635.541 kilometer square tirada dadka waa 8 milyan laakiin hadda way ka badan tahay 2017 way ka badan tahay adiga ilaa iyo 40 milyan ku dhawaad marka fiirino magaalada madaxda waa Muqdisho diintuna sanadna waa diin islaam ah aan gudan marka waxaan tegaynaa marka waxaan hadda falanqeyn doonaa ama ka sheekay doonaa shirki ka dhacay Berlin 1884 oo shirkaas oo looga hadlayay ama lagu qaybsanayay dawladaha Yurubka reer Yurubta ay ku qaybsanayeen Afrika qaaradda Afrika ama qaaradda madow sidaan marka wadamo badan ayaa la qaybshay oo gumeystayaal gacanta loo geliyay laakiin Soomaaliya ayaa 5 qaybood loo qaybay because hal wadan lama sii karo waxyaabo badan waxay leedahay dekada fara badan leedahay waxay leedahay runtii xeebo fara badan waxay leedahay meelo istaraatiijiya marka waxa la hal wadan lama sii karo marka waxa la siiyay 5 wadan ayaa loo qaybay waana 5 Soomaaliya sidii marka gobolada waqooyi waxaa loo dhiibay Ingiriiska gobolada koonfureed waxaa loo dhiibay gumeysiga Talyaaniga xeebta Soomaaliyeed ee Jabuuti waxaa loo dhiibay Faransiiska oo ilaa hadda Jabuuti waxa ugu badan ay ku nool waa Faransiis okay NFD oo gacanta loo geliyay Kenya iyo waliba gobolada Soomaali galbeed oo gacanta loo geliyay dawladda Ethiopia 5 gobol waxaa la isku yiraahdaa 5 Soomaaliya 27 June 1977 ay Djibouti xirnimada qaadatay Soomaali galbeed iyo NFD wali waxay ku jiraan gumeystayaasha NFD waxay haystaa saanoonay dawladda Kenya Soomaali galbeed Soomaalida Ethiopia waxa la yiraahdo waxaan haystaa Ethiopia haysta saanoon maanta barnaamijkeeni barashada dalka waxaan u hadlaynay ama la socoteen ama aad ka faa'iideysteen waxyaabo fara badan runtii oo maskaxdiina aan ku jirin barnaamijkan qaybtiisa labaad ayaan ku soo qaadan doonaa gobolada 18 gobol ee Soomaaliya iyo waliba inta kilomitir ay isku jiraan iyo wadan gobol kasta tuulooyinka uu ka kooban yahay iyo waliba waxyaabaha ay dhaqaalihiisa ku tirsan yihiin soo qaadan doonaa insha Allah. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.